fadhiweynahan mudanayaasha aqalka golaha guurtida oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga oo gudoominayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida ahna kusimaha gudoomiyaha mudane Siciid Jaamac Cali iyo xildhibaanadu u ballansanaayeen dhageysiga warbixinta guddi hoosaadka arrimaha dibadda siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ee golaha guurtida gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha guurtida xildhibaan Sahal Iidle Dirir ayaa madasha golaha guurtida uga waramay hawlaha iyo maraaxilka siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland iyo hawlaha guddidani ku hawlan tahay iyo xogaha ay ka soo diyaarisay ajendaha kalfadhiga 11aad ee golaha guurtida uu ku guda jiro isla markaana sharaxay horumarka Somaliland ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland ilaa 1990 waxay soo martay sidaynu ka wada warqabno marxalado fara badan oo kala duwan waxaanay ku talaabsatay horumar nabadgelyo dhaqaale dhisid ciidan hubka dhigis tababaro dubudhis dalkii burburay oo dubudhis lagu sameeyay inuu Somaliland yimi safiirkii Ingiriiska u qaabtirsanaa Somaliland iyo Soomaaliya oo ka qayb galay furitaanka carwada buugaagta oo Hargeysa oo sheegay in boqortooyada Ingiriisku ku faraxsan tahay waxa Somaliland ay qabsatay iyo inay sii wadi doonto Ingiriisku taageerada iyo uu Somaliland siiyo waxa markii uu horeysay qaramada midoobay ay si cad u qirtay 23 bishii 2013 in Somaliland iyo Soomaaliya aanay isku dan ahayn in siyaasadda dibadda iyo xiriirka caalamiga ah la geliyo dadaal adag iyo juhdi si looga midho dhaliyo ictiraaf raadinta dawladdu wado oo lagu garab istaago in wasaaradda arrimaha dibadda dardar geliso xafiisyadeeda dibadda uga furan iyo shacabka jaaliyadaha Somaliland la isku xiri lahaa in la xoojiyo xiriirka iyo cilaaqaadka aynu la leenahay dawladaha adduunka gaar ahaan wadamada jaarka dalkeenu waa hodan ee waa inaynu hoos ugu jeesano oo la soo baxdo nimcadiisa shirgudoonka golaha guurtida ayaa mudanayaasha ku wargeliyay fadhiyada dambe ay xildhibaanada golaha guurtidu dhageysan doonaan guddi hoosaadyada golaha guurtidu ka kooban yahay si guddidaasi ay xog waran dheeraada u siiso fadhiyada golaha fadhiyadii u dambeeyay xildhibaanada golaha guurtida ayaa xog waran ka dhageysanayay guddi hoosaadka ay ka kooban yihiin xildhibaanada iyagoo maanta warbixin dheer ka dhageystay guddida arrimaha dibadda Ridwaan Caydiid Ismaaciil telefishinka qaranka Somaliland xarunta golaha guurtida magaalada Hargeysa.